بسم الله الرحمن الرحيم نمضي داوديال دهانتين با كسر دوادا برنامج عصب ومقعيس اللي يراهدو دادكا يدولدودا برنامج كاس oo ka bixi doona telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu noqon doonaa mid aan tour ama wareeg ku sameeyo wadamada aan wasa magaalooyinka caanka ah ee qaaradda Yurub maanta waxaan barnaamijka ka bilaabi doonaa dalkan Faransiiska magaalada Lyon waxaa dabadeeda taagan oo ila jooga qaar ka mid ah maamulka sare ee jaaliyadda guud ee dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Lyon waxaan jeclahay inaan ka bilaabo qof aan weydiin doona bal sida ay u arkaan iyaga oo ka qayb qaadan doona barnaamijka dadka iyo dawladooda qof kasta waxaan weydiin doonaa su'aal isku mid ah sidaan baan ku bilaabi doonaa barnaamijka dadka iyo dawladooda adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo bal sida aad u aragto shanta sanadood ee xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud sida ay u shaqeysay iyo bal waxqabadka iyo sida ay aragtidaada tahay بسم الله الرحمن الرحيم. قلت جمال وعد بعد ما أتصلت هاي وقبض الدولة الصومالية كتير شتى السنة ذي من كحكومة سي يوم مركز الأسبوع يجو حكم كيو مارتي كوري وحوين ضبط حياة كنتي وحوين شيء كاستمر كالدولة لا قيمة وحلا وحق بسومي توصي يو وحقبض كمان كالجهاد يو وحق ماضي يو وحق بسومي marka waxa la isku qiimeeyaa percentage baa lagu xisaabtaa yani maxaa xumaaday intii uu hayay maxaa wanaagsanaaday maxaa horumaray guud ahaan marka laga hadlayo Somaliland waxqabadka guduhu waxa weeye wala taaban karaa runtii marka la eego waxyaabo laga beeshiga maaha waxyaabo badan baa la sameeyey mashaariic badan baa la sameeyey laakiin xagga bulshada marka laga hadlayo حاجة الشقة مركز لقى هذا حاجة سهولة مركز أحبار الشغل لقى هذا وحياة بدن بعد قاقي كنتي مركز لقى مركز هو جودهان مركز سوق جيو ما مركز إمك الصومال الآن هو جميع بدون مدحونها محمد سينايو وحوي يعني لين نو لما ورا كان بقولك يوبا لكن بقولك بس 10 هم 10 ناس والله ورا كان وحوي واحد وناسين مسيحي شيء بقول كيف بقول هو مسكين يمكن يوروبا جونا مدحونياش مركي ودنك مركي waxa la waddanka waxa ka suuroobay wuxuu qabsoomay laakiin shuruucda waddanka isaga kaliya ma isagu hadii aan la shaqeynin ma soconayo madaxweynuhu markuu waa kaada ku weey waa markii uu sameeyay laakiin wixii ka hooseeyay hadii qaloodan ama inuu karin baa waxa soo jeedin lahaa talo anigu markii hore ku tarsaday wasiirada faraha badan leh ee 70 ka maraya 60 ka maraya waddankan uma baahan dhaqaale ahaan iyo siyaasi ahaan marka waxa siyaasadda waa in la bedelaa marka dambe imika waa la bedelaa taasina waxay ku salaysantahay waxaan ka hadlaynay ee ahayd reeraysiga iyo qabiil haddii noqono dawlad noqono ma noqono dawlad qabiil ugu baabiya dawladnimada dawladdu waa dad isku tegay way oo heshiiyay marka waxa weey dawladda aad baan ugu amaanaya waxyaabo badan iyadoo inta doonaysay inay wax dhamaystirto iyadoo ay ku kalifayso in ogahay wasiirada badinayso inay leedahay ku hagaaji ma sabtay marka TV-ga Soomaaliland ee maanta nala jooga ee Jamaal oo maanta noola joogo waxa weey waa inuu noqdaa markii uu dambeysay inuu noqdo markii uu horeysay laakiin waa inuu joogto noqdaa jaaliyadda Faransiisku waxay u baahan tahay wax waraysta oo misaajka oo fariinta ka gudbiya xagga hawada kala wal gudbi karaa waa baahantii haddii aan ka sheekayno waxqabadka dawladda maanta jirta waxa weeyaan tawasiin roobay Axmed Maxamed Siiraay wuxuu ahaa nin waqti dheer ku soo jiray qadiyadda Somaliland oo in badan maartay waayarag oo ogaa maartay duurka u galay oo wuxuu ahaa gudoomiyihii ugu dheeraa waqtiga SNM marka halka Soomaaliland ka soo bilaabnay SNM waxa weeyaan runtii waa sida loo doortay saasay ahayd way aragnimada iyo taariikhda weyn uu leeyahay aqoonta ka tii laga filayay wax badan buu qabtay oo wax moodayn haykalkii dawladnimadu inuu dhaqaaqay oo wadankii ismihii wasaaradihii wax walba ay hore u kaceen wadooyinkii marka waxaan ku tahniidinayaa wax qabadka ay qabteen oo dhan xagga isgaarsiinta xagga wadooyinka meel waliba wax moodayn inay dhaqaaqday
wax dhimanna insha Allah waxaan rajaynayaa inay ku daraan oo magaalooyinka gudahooda la hagaajiyo dariiqyadooda la hagaajiyo xashiishka iyo waxa laga duro xagga jaaliyadaha iyo arrimaha dibadda waxaan rajaynayaa in wax loo baahan yahay dib loogu noqdo oo aqoonsigeena muxuu dib ugu dhacay laynoo aqoonsan waayo anigu waxaan qabaa xagga jaaliyadaha inay xisbiyadu soo farageliyeen oo jaaliyadiisi waxa loo baahan jaaliyadu inay guud ahaan u joogto oo ay qaranka la shaqayso laakiin marka xisbiyadii dhex yimaadaan kala qaybin bay u keeneen oo wayna kala qaybiyeen markaa waxaan arrimo gudaha bay dib ugu noqdeen marka waxaan rajaynayaa xagga in wax laga qabto xagga jaaliyadaha oo jaaliyadii guud ahaadaan dowladda jirta la shaqeeyaan xisbiyada ay uga muhiimsan tahay inay dowladda la shaqeeyaan dowladda ay dhex degan yihiinna ku xidhaan marka dib loogu noqdaan waxaan soo jeedin lahaa shir weyn oo qaran oo dambe in la qabto oo jaaliyadoo dhan laga casuumo weliba wasaaradda arrimaha dibadduna xoog weyn saarto sidii ay jaaliyadaha ula shaqeyn lahayd waayo furayaal baa jira ninka axmed ismaaciil sabtiro wuxuu yidhi furayaal baa jira meel walba loo qaato marka waxay naga dhiman furayaashii meel walba furlaa inaynu qaadano jaaliyad walbana waxa laga rabaa waddankay joogto furaheeda inay u keento ay dowladda u keento marka waxqabadka la wadaa u wanaagsan yahay waananu dhiiri gelinaynaa waananu kala qayb qaadanaa saas جمال وسؤال ونعكس سؤال شباب ويسي أنا دولي بقرب خبطي واحد بدلنا وكان يجينا العرقنا واحد سومالي يرجعون جيرو ويتلاقوا ولا كتير أنا بدوش عيال تفيد لك دعوانا لكن وحياة كان مننا ويتلان واحد مقرنا ساعة ديو فربنا يكبتين ويتلان وحياة كان من وحكم ذا لأن يرادا مقرنا ساعة تهريب بيسا بضحى الجلسة إن أي مقرنا ساعة شغل ينور هادسو وقدت كمواطنين تاع وضع كدقن أي كارن وصمسوا مواطنين ما وآل كرات ترتمدت كأجانب جاي دبلها كي مريا شغلة تاس أيام وحياة بدلنا عسل والجميل لكن دولة وحياة بدلنا هرمرة بس. أوكي. بحوي. أنا بقول تفرق أوريزا واحد سلام بريا حكومته شعبية معارف. صوت بحوي يعني نك معارف كمان معارفي ونك بيت ملح نقولها. لكن واحد له معارفه معارضته حد هوية وين حدها. هذا حد كذا تعرفين قاعد كريم ومسلم وياه. كيف يقولون ولا قال تاسوي كم معارف وياه. شعبي كانوا حلاه بحيث فايدة يدي كجرتو أي يدين في عنه وحن فايدة هاي نحترم الملك وحويا كبيالته إسكائل عليها لا نتعلم وحنا هفضل لنا أكون نتعلمنا وقلب كيف تحب وحويا حكومة وحويا بقبضة ننتفي كلام إنه بقبضة وأنا كان وحما يقبل قلت ميتو وحويا بقبضة تبع لي هاي لكن واحد الفرس هو شو واحد الفريق واحد سيقضيه الليل لو كشيء جميل الليل شو محيط هاي قبيلة شعب يا كرد العالم وين الشعب يا قبيلة كرد العالم من ده لبعض بحوي تذكرت عملية أو حبان نجت كمان لي أو حبان حق ولا ينهي وحاول بهي حق ولا يهين إلا سيو أو لو هديو أو لو كرتو أو لا إلى اليوم لا أبو أنت سانك بحوي سلام على ورا بسم الله الرحمن الرحيم. شنتي سنة وهي بينها سوماليا أحمد محمد سيرايو. مركز الإسكوي هو السجع يو كوي هو خصوصا نيكي كوي بعد يعني قبضه آد بس واحد شراء إن ضربه وهرمت جاري وحواه زي نقطات الرياضة زي نقطات البورنضة زي نقطات كذاها يعني هنا عوربة مركز اللي هو قبل وين يلا واحد كانوا عن قدر يعتاس إن تلقوا آد وربو صعود أصير شيء أنا وعيار شيء يوم عرفتي حقا معيشتها إن حقا اللي يركب التقييم وإن دولته إنا يفرقين كل سميسو ويتذكر مساكينها
nimanka tijaarta dee wax walba cirkaa u geeriyeen doonaya inay laba cisho ku taajiraan in maarata ay gacanta ku qabato oo shacbiga loo jebiyo cuntada iyo raashinka oo hoos loo eego laakiin waxqabad ahaan way fiican tahay wayla dadaashay ilahayna ka keeda qabo. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وفرحان الفارح كمدا جعلية سوماليلاند gaar ahaan مليون waxaan aad u salaamayaa barnaamijkan wadaniga ah ee TV qaranka wado waxaa kaloo aad u salaamayaa agaasimaha TV qaranka qaybta Yurub oo aad u mahadsan oo noo suurtageliyay gudoomiye Cabdiraxmaan oo noo suurtageliyay inuu Lyon noogu yimaado oo ah jariir badan oo reer Soomaaliland ka soo jeeday noo shahay waxaa kaloo aad u salaamayaa taadihiyaasha wariye Jamaal oo waqti dheer iyo xilli dheer iyo transport dheer noo soo galay haddaan nahay jariirada reer Lyon Faransiiska aad baan waxaa kaloo aad u salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland aad baad mahadsantihiin raygayga haddaan ka hadla barnaamijka ku saabsan raygayga waxa weeye aad iyo aad barnaamij lagu baahnaa weeye waana ugu mahad celinaynaa dawladda waa dawladda ugu waxqabadka badnaa shakhsi ahaanteeda haddaan anigu ka hadlo aad baan ugu hambalyeynaya hogaamiyaha dawladda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Sinaayo iyo tiimka la shaqeeyaba aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay halkaa ka sii wada warbaahinta inay gaadho qof kasta meeshiisa ku gaadho reer Soomaaliland oo wadaniya waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii dadka iyo dawladooda waxaan marti u ahay maamo Sahra Saleebaan Cabdi ahna gudoomiyaha garabka haweenka ee jaaliyadda reer Soomaaliland dalkan Faransiiska waxaan jecelahay inay hooyo Sahra igala qayb qaadato barnaamijka iyadoo oo ra'yigeeda ka dhiibanaysa sida ay u aragto muddada maanta 5 sano ah ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud xilka hayay madaxtinimo isla markaana bal iyadoo oo barnaamijkan ka sii faa'iideysanaysa inoo guud mari doonta isla jaaliyadda iyo garabka ay mas'uulka ka tahay ee haweenka maamulka soo dhawow telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waan u maleynayaa wad noqleysay hordhaca aan ka bixiyay bal adiga oo tixraacaya waxaan jecelahay inaad arrimaha wax nooga sheegto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyadoo TV-ga qaranka uu noogu yimi dalka Faransiiska waliba magaalada Lyon marka waxa weeye farxaan aad Jamaal waxa weeye aad iyo aad halmaam hadalku ma jirin Jamaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye maanta imaatinkaad noo timi iyo booqashada nagu soo booqatay halkan iyadoo maanta bishu ay tahay 25 bisha Abriil sanadku yahay 2015 oo maanta halkan aan joognana waxa weeye gurigeyga dhexdiisa uu tahay meesha uu nagu soo booqday marka waxaan aad iyo aad su'aalaha ii weydiisay haddii aan ka jawaabo marka ugu horeysa waxaan doonayaa halkan aan ka bilaabo horta inaan salaan u mariyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo xaaskiisa Aamina Waris marka labaad waxa weeye su'aasha ii weydiisay haddii aan ka jawaabo wax qabadka 5 sanadood ee waxa weeye madaxweynuhu soo qabtay ee dawladdu soo qabatay waxaan u arkayaa horta waxyaalo aad iyo aad u qurux badan inay tahay aad waxa weeye horumarna aynu gaadhnay waxyaalo fara badanna la qabtay runtii haddii aan la iska indhatiraynin waxa weeye kulley markay islaam noqotay dawlad kasta markay ugu horeysa markay muddadu 5 sano tahay waa muddo iska kooban waxa weeye intii la qabtay in kalena ay dhiman tahay inta dhimanna ilaahay insha Allah waxaan ka rajaynaynaa in la dhameystiri doono si wanaagsan oo qurux badan laakiin waxyaalaha la qabtay runtii waxyaalo aad iyo aad u muhiim ah oo la arki karo oo la taaban karo weeye oo marka aan indhaha laga qarsan karin iyadoo waxyaalahu ay ka mid yihiin haddii aan wax ka yara taabto xaggan arkayo waxa weeye xagga iskuulada ha noqdaan xagga matalan wax qabadka jidadka ha noqdaan xagga waxa weeye matalan caafimaadka ha noqdaan iyo waxyaalo badan oo digu la mid ah oo aan la soo koobi karin aniga oo ka faa'iideysanaya isla barnaamijkan iyo Janiskan quruxda badan ee aan ku helay maanta maamo Sahra dadku isku jiraan maamo Sahra sida iiga muuqatay markii aan isla gurigeeda yimi booqashada ugu yimi waa qof qarannimadu ku weyn tahay sida iiga muuqata dhabarkeeda ma moodid inaynu gurigeedii joogno waxa ka muuqda aasaartii maamulada isu taga Yurubiyaanka
calankeenii Somaliland iyo kii Faransiiska halkan gacantayda ku dheeda calankii baan ku hayaa miiska waa saaran yahay xagan kale dhabarkayga sida hadda markaan guriga imi la tusay waxa taala asaar fara badan oo iyaguna dhamaantood ku khuseeya Somaliland dawadayaal sida idin muuqata halkan waxaan ku hayaa mid kamid ah joornaalada ugu afka dheer leh dalka Faransiiska oo magaciisa la yiraahdo Le Monde article ama maqaalo uu Somaliland ka qoray barnaamij hore oo kan ka horeeyay oo asal magaalada Lyon ka diyaariyay waxa uu gudoomiyaha jaaliyadu ii sheegay in dadaal dheer oo ay u galeen dhinaca warbaahinta in ay Somaliland adduunyada baraan ay saxafiyiin caan ah oo Faransiis ah kuwaas oo Somaliland soo gaaray ay u direen barnaamijkii caanka ahaa ee Route Impossible haddii aanan luqadda Faransiiska dhawaaqaygu khaldaynin oo ahaa barnaamij uu wariyay caan ah oo Faransiis ay ka soo diyaariyay Somaliland wali waxaan ku dhex jiraa barnaamijyadii ama maqaaladii laga soo diyaariyay oo ah wax sida alaabta iska caadiga ah guryaha u taala guriga maamul sahara u wada yaala halkan kale waxa iga muuqata warqad ay ku qoran yihiin qoraallo af Faransiisa kelmadda ay soo jiidatay ayaa ah su'aal aad u muhiim ah oo ahayd à quand la reconnaissance du Somaliland goorma la aqoonsan doonaa Somaliland maaha wax imika ama sanadahan dambe ay sameeyeen waa 2010 5 sano ka hor madadhawa daawadayaal waxa iyaguna halkan yaala sawirro dhaqan ah oo wadankii laga soo qaaday oo ku muujinaysa sida ay maamul sahara dalkeeda u jeceshahay waxaan oo dhan su'aalaan noqon doonaa aan hooyo kaga wareysan doono wadaniyad jacaylku waa wax dadka ilaahay u kala sameeyo halkan waxa iyaguna yaala sawirka madaxa jamhuuriyadda mudane Axmed Maxamed Maxamuud oo isna guriga u yaala intaas waxaan kaga baxaynaa bal inaan muuqaal yar idinka siiyo wadaninimada aan ka arkay maamul sahara aan soo noqdo hooyo adiga oo wadan qurbe ah jooga oo ay adag tahay in asaar fara badan oo noocan la helo waliba dalka Faransiiska oo aynaan aad ugu badnayn sidee baad ugu keentay waxaan oo qalaba runtii waxa weeye marka ugu horeysay markan aad joogto qurbe waa inaad aad tusto oo aad barto dadka horta marka ugu horeysa waxa weeye wadankaaga inaad ka dhaadhiciso wuxuu yahay mar labaad markaad ka dhaadhiciso in waxa weeye madaxweynaha markii ugu horeysay waayo dadku waxay wada yaqiineen inuu dalku Soomaaliya uu yahay laakiin markii dambe waxa weeye dadka waxaanu ka dhaadhicinay oo aan u sheegnay in waxa weeye Soomaaliya iyo Somaliland ay kala tahay oo markii horena isku ahaayeen laakiin markii dambe ay kala baxeen taas oo ay tahay marka madaxweynaha yaga Axmed Maxamuud in waxa weeye sawirkiisa waxa weeye aanu tusno oo aanu barno oo aan lagu khaldin waxa weeye madaxweynaha kale taas waa koow taas waxa noogu wacan marka meteleen vacancyada fasaxyada aanu tagno kale oo wadanka inaanu doono oo aanu soo qaadano had iyo jeer waxyaalihi ama wax weeye sawirada ha noqdaan madaxweynaha ama ha noqdaan waxyaalaha dhaqanka u ah wadankeena oo ay ka mid yihiin sawiradan oo kale halka idinka muuqda marka sawiradaas oo waxyaalo fara badan iyaguna tilmaamaya oo hidihi iyo dhaqankii wadankeena ah ayaanu soo qaadanaa taas oo qof walba de meesha aad joogto waa qurbe ta kale inaad ka dhaadhiciso dadka oo aad tusto dhaqanka aad leedahay iyo sida u dhaqantaan oo ay wax ka bartaana waayo bergii ugu horeysay markii aanu runtii aanu nimi xaggan dadku waxay yaqaaneen de markay weydiisay Soomaaliya laakiin may oqoon wax la yiraahdo Somaliland waliba suqtu markii aanu joogno waliba xaggan Faransiiska laakiin imika aad iyo aad wax weey loo bartay oo xitaa cid kale iska dayo markii imika aanu tagno waxa weeye dawladaha hoose xagga dawladda marka imika way kala saareen si fiican way u yaqaaniin in Soomaaliya iyo Somaliland ay kala duwan yihiin laba dawladood oo wax weeye jaar ay yihiin marka waxyaalaha caynkaas baan nagu dhiirigelinaya had iyo jeer waxa weeye ama maamka yaga ha noqdo ama waxyaalaha dalka yaga ka jira in aanu tusno oo aanu barno dadka oo aanu ka dhaadhicino taas oo waliba u daba joogno sidii imika wadamada qaar ay sameeyeen oo kale oo Ingiriisku koow ka yahay in anaguna aanu daba joogno inaanu barno oo dawladayada aanu ka dhaadhicino si aqoonsi ahaan waxa weeye ay u aqoonsadaan waxa weeye dawladda Somaliland waxay tahayna ay bartaan daawadayaal waxaan intaa ku dhaafayaa maamo Sahra Saleebaan Cabdi oo saan hore idinku sheegay ah gudoomiyaha garabka haweenka ee jaaliyadda reer Somaliland dalkan Faransiiska aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa maamo Sahra waqtiga aad siisay waxaan idin leeyahay si wad wanaagsan
waad mahadsantahay Jamaal aniguna halkaas waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha Somaliland dal iyo dibad baa wixii jooga adiguna aad baad u mahadsantahay insha Allah waxaan rajeynayaa mar dambe inaad ugu soo noqon doontid waan salaamayaa adiga iyo TV-ga waxa weeye Somaliland السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد عبد الشروق أهلا كربتشوكا وضع فرانسيسكا وضع كينا كنت جاي دوان بوقشو كنا مغرام طلع بالوضع وحنا دوني إنا يركتابتو وحقبت في الدولة iyo waxyaabaha ay qabatay waxaan tagay laayo wadada Gaabo laga dhisayo ee ka bilaabtay magaalada yar ilaa 10 kilomitir baa la dhigay ilaa Xayira meesha la yaabo oo ay xagga kale waxa laga soo bilaabay Gaabo waxa la soo dhisay 110 kilomitir iminka maraysa hadiya jeer waxaad moodaa markay mucaarad wax dhaliilayaan waxay hadiya jeer yiraahdaan waxba lama qaban waxaan soo arkay oo aan waraystay oo aan la fariistay gudoomiyaha xisbiga xukuumadda Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Kaahin waan arkay dowladda nimanka ugu firfircoon waqtigaas oo ahaa shirka madaxtooyada waxqabadka dowladdu waa mid aan cidinayn kari karayn hadday noqoto nabadgelyada waxqabadka yacni wadooyinka si waxaad badbaadi jeer mucaaradka marka mucaaradayaan waxaan arkay nin ragga ugu firfircoon ururka la yahdo wax markaad waraysato mucaaradku ma sheegi karayaan xitaa waxay ku kambayn garaynayaan ama objectivekooda ay leeyihiin inay dadka u bandhigaan ma moodid in wax cad baa ay hayaan waxbaa la cunay iyo waxbaa la qarribay iyo corruption baa jira aanay caddayn u hayn ayaad moodaa in had iyo jeer kuwaan ducoodaan marka waxaan leeyahay qurbajooga dowladda anigu aan soo arkay waddankaan soo arkay oo waddan nabadgelyo badan taalo wax qabasho badan oo dowladdu qabatana ay jiraan waad ogtihiin wadooyinka airportada waxaan tegay airportka berbere waa tegay dekadii waa tegay berbere waxaan tegay wadooyinkeeda laamiyada dhex mara waxaas alxamdulillah hore ma jirin dee kulmiyo ka hor ma jirin dowladda kulmiyo alxamdulillah maanta waxaasoo dhan baa jira waxaa leeyahay kuwa mucaaradkee wax dhaliilow waxaad inoo keentaan barnaamij cad oo aad doonaysaan waddanka in lagu doorto aad ku hogaamisaan iminka waxaad moodaa dowladdan waxqabadkeedu inaanay dee aanan ku qancin qolada mucaaradka taa waxumay qaban dee qof walba indhihiisa iyo ma garanaysaa ay arkayaan siday wax u qabteen iyo waxyaabahay qabteen oo wax muuqda kaabayaasha dhaqaalaha haddaad noqoto yacni waxaanay qaban dee oo aanay ka tahay ma odhan karo yani waa isku dhammaystiran tahay laakiin yani sidii aynu hore u barannay kuwii hore ee meesha ka tegay ee dee magaranaysaa joogay muddada dee kuwan way dhaamaan oo waxqabadkooda waxaa dee dowladdii waxaan malaynayaa dowladdiiyaa ka horreysay oo wax qabatay ama inoo dhalatayba waddan ka dhalatayba may jirin tanuunba inoo koowa dowlad aynu maqalay oo wax qabatay tanuunba inoo koowa marka waxaa leeyahay dowladda waa in lagu garab galo oo lagu hambalyeeyo waxay qabatay oo qofka niyadda marka uu wax qabto haddaanad odhan waxbuu qabtay waa taa waxa muu qaban yani taa lafteedu xagga diintana ma garanaysa waa gaf weeyaan oo xagga ilaahay ma waxaa la yidhi aljazaa alixsaan ila alixsaan marka taasina taas weeyaan waxaan leeyahay qurbajooga waddankeenu waa dhisan yahay waa hagaagsan yahay halkaa aynu ka sii wadno oo aynu maal gashano waliba siga qurbajooga waxaa guud ahaanba intaa ku eegtaa wadayaal barnaamijkii dadka iyo dowladooda barnaamijkan oo ah jeeraale ay iskaga warhayn doonaan dadka qurbaha jooga ee reer Somaliland iyo dowladooda ay soo doorteen barnaamijkan oo aan dadka kaga wareysanayay bal sida ay u arkaan hadba waxqabadka ama wasa shaqada dadyoga mas'uuliyiinta ah ama wasa sida ay u shaqeyso dowladda Somaliland barnaamijkan ayaan tuur ku mari doonaa magaalooyinka waaweyn ee qaaradda Yurub imikana aan ku suganahay dalka Faransiiska daawadayaal barnaamijkan ayaa ka bixi doona telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland anigoo Jamaal Cabdi Ibrahim ayaa idin socodsiin doona tan iyo inta aynu dib u kulmi doono waxaan idin leeyahay amaana Allah